gudoomiyaha ammaanka ismaamulka Wajeer Jacob Narengo ayaa digniin u soo jeeday dadka ka ganacsada daroogada xilli uu ka hadlayay maalinta xuska halyeeyda oo lagu qabtay magaalada Wajeer. Narengo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha gudniinka fircooniga. Najua wale wote wanahusika na kuuza madawa ya kulevya. Na nyinyi mnataka kuharibu viongozi wa kesho. Kwa hivyo mtachukua jukumu ya kuhakikisha kwamba wale wanahusika ile mabasi zote zinatoka Bute huko zinakuwa intercepted na wale ambaye wanauza madawa ya kulevya wawekwe ndani. Sasa yes, na wamama ambaye wanahusika na maneno ya ukeketaji. Tuko na RRI ya ukeketaji katika Wajir na tunataka kuhakikisha by 2022 wale wamama wote ambaye wanafanya wale tunaita kwa Kiingereza katas. Tumesema na nataka watu wa nini wasikie hii. So duba tumeprofile ya mama wote. We know them by sublocation, by village. Kwa hivyo anataka wewe kama viongozi wa mama, nataka sasa chukua jukumu ya kuhakikisha kwamba hao mama, nafikiri ma DCC, you gave me the names, wale katas wote. Sasa tangazo ni hii, wale wana practice maneno FGM Wajir, your days are numbered, na tutahakikisha wale tumeprofile wote. So first lady, wakati tukianza kushika usipige nduru. Kwa hivyo tutahakikisha wale wanasumbua wasichana wetu, na hii ni amri ambayo imetolewa na ni RRI. Tutahakikisha kwamba hawa mama wote wameshikwa na wamepelekwa jela. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari dalada ay ku mideysan yihiin culimo diinka ee loo soo gaabiyo Suubkime Dr. Aadan Yunis ayaa siyaasiyiinta uga digay hadallada kala qaybin kara Kenyaanka. Haddii aan ka hadalno ammaanka siyaasa waxaa naga codsiya kutoka juu mpaka chini. Huko mnasikia Uhuru Ruto huko juu mpaka chini mpaka MCA. Waxaan u baahannahay nabad. Siyaasadda wadanka hala dejiyo, siyaasadda county-ga hala dejiyo. Waana direction aan ka helnay kutoka National Supreme Council Office-keeda Nairobi. Amarkaasana la sii in culimo diinka ay ka shaqeeyaan nabadda. Walidaalika waxaan naga codsiyaa dadka siyaasadda interest kale kuwa hadda ku jiraan iyo kuwa rabaan iyo kuwa dhaceen iyo kuwa si rabaanba siyaasadda hala dejiyo. Siyaasadda hala dejiyo. Waxaa jiro ammaan la yiraahdo ammaanka dhaqaalahana si nabad ah lagu maamulo, Ilaahay ha laga cabsado. waxaan jirina la sheegin nabadda dhaqaalahana hala dejiyo. Gabanaha ismaamulka Wajeer Ambassador Maxamed Abdi Maxamuud ayaa ka hadlay miisaaniyadda la meelmariyay shalay, isagoo sidoo kale soo hadal qaaday cudurka corona ee halaagay caalamka. Muddo dheer waxaan leedahay budgetkayna lama marin, gaajaan u dhamaanay. Marka hadda waxaan rabaa inaan u mahad celiyo county assembly-ga oo shalay mariyeen doodlaan ay mariyeen. Marka balu kala walaalayaal cudurka dilayga oo la dhaha COVID walaalayaal, cudurkaas waa dilay dhowr iyo 50 ruux ayuu ku dhacay reer Wajeer. Sabacnu dhageyst ya ku kala qarsana cudurkaasna inay jiraan la arkaa. walaalayaal waxaan rabnaa cudurkaas waa halis, waa la isku ridaa. marka waxyaalo looga tirigalay jirta caafimaadka in gacmaha la dhaqdo. Si kastaba xafladda maalinka xuska halyeeyda oo lagu qabtay magaalada Wajeer ayaa lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameed. Maxamed Shaafican ko NEB TV Wajeer.